Edward Gibbon, Dostoevsky, Mahatma Gandhi, Goethe, Michael Hart, Napoleon Bonaparte iyo waliba Leo Tolstoy iyagoo aanan muslimiin ahayn misana ku kala nool goobo kala duwan iyo waliba xilliyo kala duwan ay baaritaano qoto dheer ku sameeyeen deedna weyneeyeen misana amaaneen suubanaheena naxariis iyo nabadgelyo korkiis ha ahaatee tanina waxay cadeynaysaa in qofku haddii uu wanaagsan yahay xitaa dhimashadiisa haba ka soo wareegto muddo badane inay dadku xusuusan doonaan oo uu laabtooda ku noolaan doono. haatan waxaan muuqaalkeena maanta ku lafaguri doonaa wixii ay ka yiraahdeen jilbaweyntani suubanaheena naxariis iyo nabadgelyo korkiis ha ahaatee. Segacaliyaal inta aan gudagelin barnaamijkeena tixanaha ah ee 30 juz iyo 30 fariin waxaan idinka codsanaynaa inaad nagu soo biirtaan oo subscribe saartaan channelkeena fadlan ha ilaawin inaad la gareysaan muuqaalkan oo aad gaarsiisaan saaxiibadiina mahadsanidin. wuxuu Alle subxaanahu wa ta'aala aayadda 110aad ee suuratul kahfi ku yiri قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. waxaad ku dhahdaa nabi allow waxaan uun ahay anigu bashar idinka oo kala ah waxaana la ii waxyooday inuu ilaahiina yahay ilaaha kaliya ee xaq lagu caabudo ee ruuxii doonaya la kulanka eebihiisa ha sameeyo camal fiican yuuna la wadaajinin cibaadada eebihiisana cid kaleete. aayadani wuxuu suubanaheena naxariis iyo nabadgelyo korkiis ha ahaatee inoogu sheegayaa inuu yahay qof aadane inaga oo kale ah oo suubanaheena waa uu hurdi jiray soo toosi jiray waa uu guursan jiray caruurna waa uu dhali jiray wuxuuna intaas inoo raacinayaa suubanaheena in yoolkii ujeedka loo soo diray misana loogu waxyoodo oo kaliya yahay inuu inoo sheego jiritaanka hal ilaah kaas oo xaq lagu caabudo qof alaala qofkii doonayo oo uun rajo ka qabo la kulanka allana aan laga doonayn inuu buuraha baraf u bedelo ama uu laayo aadanaha dunida saaran oo dhan si kaliya waxaa laga rabaa inuu sameeyo camal wanaagsan sida inuu sadaqa la baxo oo uu caawiyo dadka 5 salaadood uu dukado oo uu soomo bisha barakeysan ee Ramadaan deedna uu ka fogaado shirkiga. waa intaasi uun culimadana waxay diinta oo dhan ku soo koobeen 2 arin in qofku uu la yimaado wanaagyada iyo inuu ka haro xumaan oo dhan oo qofkii labadaasi arin la yimaada waa mid badbaada labada daaroodba. sidoo kale kolka laga hadlayo suubanaheena waxay dadku noqdaan 3 qolo kuwa ku xeel dheeraada amaanta suubanaheena ilaa ay gaarsiiyaan darajada ilaahnimo kuwa u asteeyo una amaana suubanaheena sida uu Alle subxaanahu wa ta'aala u amaanay oo waxba kuma daraan waxna kama jaraan iyo qolo saddexaad oo iyagana hooseysiiya misana yareysta suubanaheena iyagoo leh nebigu wuxuu ahaa qof inaga oo kale ah oo waxba inagama duwana. si ujeedkooda rasmiga ahi waa inay darajadii uu Rabbi subxaanahu wa ta'aala siiyey u diidayaan. dhanka kale waxaa jira aqoon-yahano isugu jira reer galbeed iyo reer bariba oo gaalo ahaa se kolkii ay baarayeen sooyaalka suubanaheena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ku fiiriyey indhabad qabo runtana la wadaagay jiilaalkii iyaga ka dambeeyey waxaana ka mid ah jilbaweyntaasi Edward Gibbon oo ahaa mid ka mid ah qoraayadii iyo taariikhyahanadii ugu caansanaa ee Ingiriiska. wuxuuna yiri isagoo ka hadlay suubanaheena iyo waliba diinta islaamka quraanku waa daliilkan ugu weyn ee inoo sheegay in Alle uu kali yahay qof waliba oo aaminsan jiritaanka hal ilaah inuu qaato diinta islaamka waa mid uusan ka labalabeynin. in qofku uu muslim noqdana waxaaba macquul ah inay ka sareyso ilaa iyo hadda ikhtiracyadii aan sameyno oo dhan. sidoo kale qalin dahablihii weynaa ee raashiyaanka ahaa ee Dostoevsky isagana wuxuu yiri isagoo suubanaheena ka hadlayo nabiga weyn ee islaamka waa nabigii aadaraba weyne dhankiisa ee waliba la soo kulmay aniguna si qoto dheer ayaan u aaminsanahay dhilmintiisa. sidoo kale waxaa la sheegaa
inkastoo fiski kolkii uu xabsiga ku jiray fariintii uu u dirayay walaalkii weliba qaybtii ugu dambaysay uu ku yidhi walaalkaygiyow xoogaa lacag ah buugga Emmanuel Kant ee naqdinta baraxala iyo weliba kitaab quraan ah ii soo dir waayo iyaga ayuu mustaqbalkayga ku xiran yahay Mahatma Gandhi isagana wuxuu yidhi isagoo ka hadlayay suubanaheena waxaan rabay inaan barto nolosha qof degay malaayiin qofood laabtooda weliba iyaga oo aanan iska hor imaanin isaga daraaddiisa deedna kolkii aan aqriyay noloshiisa waxaan xaqiiqsaday in seeftu aynan ahayn wax balaariyay jaceylka loo qabo oo aynan sal ku lahayn faafidda islaamka wuxuu ahaa nebi tabaaduc badan rabitaanka naftiisa gadaal ayuu geyn jiray daacadnimadiisa ereyadiisa nafuridii uu u samay jiray saaxiibadiisa geesinimadiisa cabsi la'aantiisa iyo weliba kalsoonidii buuxday ee uu ilaahiisa ku qabay ayaa sare u qaaday bal qof tayadan oo dhan leh si loo joojiyo miyay qasab ahayd in lala dagaalamo kolkii aan dhameeyay akhrinta mujalladda labaad ee ka hadlaya nolosha nebiga waxaan aad uga murugooday inaysan waxba ka harsanayn buuggii oo uu iga ilaanayo waxaana muujinayaa qadarin qoto dheer inaan u haayo Nabi Muxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee Goethe oo ah suugaanyahan iyo weliba faylasuf u dhashay dalka Jarmalka wuxuu isaguna yiri isagoo ka hadlayay suubanaheena qofnaba kama tilaawi karo xeerarkii uu dejiyay Nabi Muxamed si weliba aan u hormarnay iyo si weliba aan xeerar u degsanay kolkii loo fiirshay ilbaxnimada islaamka kaliya hadda ayaan jaranjartii uu Nabi Muxamed ka gudbay lugta saarnay innaga qoraagii weynaa ee qora buuggii caanka ahaa ee ka hadlayay 100 qof ee ugu saameynta badan dunideena Michael Hart wuxuu sameeyay cilmi baaris qaadatay 28 sano wuxuuna nabigeena sallallahu alayhi wasallam ka dhigay qofka koowaad ee buuggiisan kolkii la weydiiyay sababta uu Nabi Muxamed u geliyay kaalinta koowaadna wuxuu ku jawaabay sanadii 611 miilaadiga ayuu Muxamed ku dhashay magaalada Makka deedna wuxuu sheegtay inuu yahay rasuul alla xaggiisa laga soo diray waxaana rumeeyay 3 qofood oo kaliya xaaskiisa saaxiibkiisa iyo weliba wiil yar hadda oo ay ka soo wareegtay in ka badan 1400 oo sanana waxaa rumaysan balaayiin muslimiin ah maalin weliba tiradooda waa ay sii siyaadaysaa Muxamed beenlow ma noqon karo waayo beeniso camayso 1400 oo sano wax ka badan sidoo kale lama qiyaani karo balaayiin qofood waxaa taasi ka sii daran inay malaayiin diyaar u yihiin inay isaga dartii naftooda u huraan ee qof Kristaan ahi diyaar ma u yahay inuu naftiisa u waayo Ciise dartii deedna dadkii oo dhan waa ay aamuseen wuxuuna hadalkiisa raaciyay Michael xitaa haddii aanan muslim ahayn waxaan ku qasbanahay Muxamed inuu noqdo qofka koowaad ee buuggaygan waayo buuggaygu waa mid ay ujeedadiisu caddahay waxaa la sheegaa in Napoleon Bonaparte uu yidhi waxaan aaminsanahay in dhammaan dadka caqliga iyo dhaqanka u saaxiibka ahi ee dunideena ku nool ay isu imaan doonaan si ay u dhisaan hal dawlad oo ay u maamulaan waxaana aaminsanahay mabaadi'da ku qoran kitaabka quraanka inay yihiin kuwa dadkaasi oo dhan farxad gelinayo hadal uu ka jeediyay Masarna isagoo ka hadlay inay qasab tahay weynaynta Nabi Muxamed iyo quraankaba ayay sheegeen dadkii kolkaasi joogay inuu Napoleon ahaa muslim isqarinayay sidoo kale qoraagii caanka ah ee Tolstoy waxa uu yidhi waxaan si qalbi furan u rumaysanahay Nabi Muxamed in ka badan inta aan diinta Kristaanka rumaysanahay inkastoo ay u ekaan karto wax lala yaabo aniga ahaan diinta Muxamed waa mid aad uga sareysa diimaha kale oo dhan haddii dadku ay xaq u leeyihiin inay si xor ah wax u doortaan masiixi kasta oo caqli badan iyo qof kasta oo bini aadam ahi wuxuu si shaki la'aan u aqbali lahaa ilaaha kaliya ee Muxamed iyo nabinimadiisa haddaba gaal iyo muslimba waxay isu raaceen weynaynta qiimaha iyo weliba qaayaha uu leeyahay nabigeena sallallahu alayhi wasallam ugu dambayna gacalayaal allaha qaadirka ah ee iskale labada daaroodba hayna waafajiyo xaqa hana inagu dilo diinta islaamka dalka iyo dadkana aynu u duceynay inta aynu ku guda jirno maalmaha barakeysan ee bisha Ramadaan wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh